maantana waxaan wax ka baranaynaa qayb ka mid ah qalabyada loo isticmaalo beeraha adduunku yani xilligan lagu jiro wax walba casri bay leeyihiin abuurka ama beeraha ama waxyaabaha maarta dalagyada waxa jira waxyaabo lagu hormariyo muuqaalkii ka horeeyana waxaan ku soo bandhigay warshado yaryar ama mashiino yaryar oo dadka anfacaya warshadaha waaweyn dadkan keensan karin anfacaya maanta marka muuqaalkan waxa ugu talagalay waxaan joognaa yani meelaha lagu hormariyo dalagyada ama abuurka greenhouse tusaalahaan yani hadda meeshan aan ku jirno waa greenhouse ama guryaha loo dhiso beeraha oo wax lagu dhex koriyo ama ayaga dhexdooda wax lagu dhex beero waa muuqaalka dhamaysta like saara share dhaha mid kale follow ha laysoo dhaho Soomaaliya reer Facebook bari baan lacag ka samey jiray oo maartay aan aniga faa'iido ku qabo jiray laakiin markaan adinka waxaan kugu soo gudbiyaa marka follow ha laysoo dhaho qalab badan ayaa meesha ku jira greenhouse kaliya ma aha muuqaalka dhamaysta hadda waxaan ku jirnaa marka greenhouse casriya marwaxada leh cabirkiisu uu aad u weyn yahay wax badan loo adeegsan karo birahaas hadda yani waa tusaalooyin oo qofkii u baahan qudaarta ama wax walba uu beerayo uu abuurka ku beeran karo hadda la rabana dhul ciida ayaa lagu dhisi karaa marka waa inta arkay greenhouse inta arkay kii ugu macquulsanaa ugu fiicnaa oo aad la cajabo ahaa inkastoo laakiin lacagtiisa aad fara badneed meelahan hadda anigu aan joogana waxaan ka cudur daarnay maaha 2 shay 3 shay meel la gadayo warshadihii sameynayay ayaan la joogaa yani muuqaalkan dabcan ganacsatada anfacaya inay maarta soo iibiyaan oo dadkii mirmiriya 2 ay uga sii gadaan halkan marka waa isla greenhouse kale asagana kii hore soo arkayna nuuc buu ahaa kana asna waa greenhouse kale halka biyaha ku jira marka halkaas mirihii ama geedkii uu ku baxaya marka markuu ku baxo ama haduu rabo wuxuu noqon karaa geed sidaasba aad miraha meesha uga gurato halka ku baxana uu noqon karaa dhirta qaarna banaanka u saaran kartaa marka waa maartay meelaha abuurka lagu koriyo mid kale beeraha aniga cilmiga beeraha milihi يعني qof hadda rabta inay wax badan ka ogaato wax badan ayaan ahay laakiin sastaha la wadaagaya inta yar ee maartay muuqaalka dad iga aqoon badan meesha ku jira ana dadka kale ganacsatada ama dadka u baahan inay beeraha ka faa'iideystaan ayaan ugu talagalay inaan tuso oo ay adduunka saan ula jaan qaadno halkan waxa ku yaala yani waa ubax ama fiyoore isagoo caagana loo soo iibgeeya marka waxyaabahaas dhan greenhouse-ka ayaa lagu beeran karaa oo maaragtay miro badan oo ama abuur badan yani beer marka maqashan wax laga yaabo Soomaalida inay ku soo dhacaan yaanyo iyo kabsar ma yaanyo iyo kabsar waa inaan ka gudubnaa waxyaabo aan in la wadaaga inta badan waxyaabo wadanka ka dhiman oo adduunka aan kula jaan qaadi karno yaanyo iyo kabsar wadankeena meel kasta ay ka baxaan laakiin waxa jira waxyaabo fara badan halkan greenhouse kala weey waxyaabo fara badan oo wadankeena qudaar yani fowkahada ama qudaarta yani wadamadaas kaga soo dhoofay sida canabka tufaaxa liin macaanta maaragtay kan canabka qudaar badan baa jira halkan hadda waa greenhouse kale waxa isagana loogu talagalay qudaarta qabowga ku baxda sida strawberry geed la yiraahdo makaro suurkiisa meesha soo saaraya geedkaas يعني waxaan anagu waxa dhana wadankaygu waxa ma ka baxayo adduunka cilmiga hadda halkaan ka barto waxa kamid ah wax meeshu hadiiba geed ka baxo wax aan ka bixi karin ma jirto xitaa yani hadii cimiladu kala duwan tahay waxa loo sameeyay yani in dhirtii meel lagu korinayo salaha ilmaha markuu 6 bilood ku dhasho dhala lagu koriyaa Soomaha marka almuhiim yani hadda greenhouse-yadan casriga ganacsatada dadka maarta qurbo joogta intii wadanka awooda waa wax aan rabo inaan ku sii dhiirigelnay anaga aan u baahanahay muuqaalkana dadku dhalinyarada 2 hal xabo 3 xabo raba hadhow aniga soo weydiinina waxaan warshada aniga la joogaa waxa kaliya oo maartay ka heli kara oo soo sameey kara waa dad kale ganacsata ah ganacsataduna way yaqaanaan meesha u mari laayeen marka waxaan dhihi lahaa ganacsato wadanka kheyraadkiisa waxa kamid ah oo fursadaha ka jira beeraha casriga waliba inaan wax dhoofisaan adduunka Soomaaliya liinta kaliya laga dhoofiyaa oo ma sha Allah ah laakiin anagu waxaan u baahanaa dhulkayga wax ku beerno adduunka anaguna u dhoofino halkan waa meesha igu yaabka badan waa talaagada camal waa greenhouse yar kulay magac buu leeyahay greenhouse ka soo arkaysan ma laakiin waa mashiino yar
ودرت لغو كوريو تلاجة عمله قبو يعني له بيو كده حجران وكعذر دارنا مجا مسو يعني مجا يعني سيدا جرين هاوس وكلا جرين هاوس كنا مجا بقول مجا إذا مسو قادن لكن مهمته حتى هو مشين أما قلب درت أصلا لغو كوريو وسيد تلاجة وكلا أو ساسكو لنا حيسته درت لغو كورنيا مركي درت صواب بحذو هذا تاس ويانيو كلا يعني هذا مو جدا تلميش بسكو بحذي marka dhirti meesha ku baxdo waan tusi doonaa banaanka geesanaysa meel kale ugu tala gashay marka qalabyadan casriga ah u baahanahay ganacsatooy ana waxaan u baahanahay sidoo kale ganacsada kaliya maahan dadka dhaqaalaha haysta sida qurbo joogto kale ama qofka asaga raba inuu iskiis wax u sameeyo beerahan oo kale qalabyadan oo kale noo soo qaada meeshan biyo ugu jira abuurka halkaas lagu ridayaa marka sida hadda meesha yarta aragteen biyo ku dhex jira abuurka ku ridaysa geedku muddo yar oo kooban buu ku weynaanayaa sida aragtaan ayada hadda halkaas ay ku soo baxdaba anaga marka waxaan casrigan u baahanahay marrabna ganacsiga isku wada midka ah inkastoo waxaan qarash fara badan ay u baahan yihiin oo greenhouse-da qaar ay lacag aad u fara badan yani waxaan ma lacag yara aad u badan yihiin hadda in sheegaya aniga laftigayga tabarteedu way noqon weysay laakiin dad dhaqaale waan haysanaa Soomaalida adduunka ayaga ugu dhaqaale badan marka dhismo yar oo la isla ceyrsado maryo yar oo la gadgado waxaas kaliya maahan anagu wadanka aan haysano waa inaan waxyaaba adduunka jira oo yani qalabyada wax lagu sameesto la soo qaada wadankana wax ka dhuufina qeyraadkiisa halkan day asalaata ka baxaysa talaagad dhan yani talaagad amal u sameeysan tahay meeshu laakiin waa qalab yar oo maartay wax lagu korinayo dhirta lagu korinayo oo xitaa hadii boosku kugu yar yahay dhulka aad haysto ciidan sida maartay u tira badan yihiin Chinese-ka u tira badan tirabadooda ay xal ugu heleen dhulka hoostiisa xitaa tareen uga jeexeen ay xitaa beeraha qofku dhulku ku yar yahay يعني إن ير وحكوا سميسا كرا بيرو يعني greenhouse-dan قلبيدا markuu qofku keensado ayuu wax badan ku soo saar karaa sababta asalaata hada arkaysan kala hore laga goranaya marka muhiimadu waxay tahay aniga muuqaalada waxaan soo duubay inta badan muuqaaladan hadda wadankan intaan joogo inay dadka dhaqaalaha haysta ay ka faa'iideystaan oo wadanka noogu keenaan si dhalinyaraduna ay shaqo u helaan aniga beeraha waan sameystay beer baan sameeyay waxyaabaha qaarna waan soo qaatay waliba inta meelaha hoosaan ka soo qaatay waa in la wadaagi doona markaan wadanka keeno iyo saan u isticmaali doono halkan waa qalab yar oo suna geedo yar oo suna geedaha meelo yar oo geedaha lagu koriyo marka geedihii aad soo aragteen meeshii mashiinka yara ku jiray ama meeshii yareed ku jiray banaanka u soo saarsa kuwana geedku markuu baxo oo xoogaa la ekaado kulli dadka cilmi bay u baahan tahay in loogu tala galo ama geedku soo koro ayaa meeshan la keenaya waa aragtay meeshan banaanka tusaale waa ka geedkaas oo kale qudaarta la cunug kamid yahay sidaas marka waxaan leenahay waxba nooma baxayaan wadankayga wax walba aqli maskax ba adduunkii lagu hormaray oo wax walba lagu soo saari karaa marka muuqaalkana waxaan leeyahay in badan share si dhaha muhiimada ugu badan oo iska dhiirigelin dhalinyaradu inay shaqo helaan ganacsataduna fursadaha wadanka faa'iideystaan saliida dhaqankaaba dhamaan wadankeena dhan kasto laga eega saliida dhaqankaaba kale wuxuu dhigmaan lagu sheegin dhulkeena dhagdhag dib gacanta saliida dhaqankaaba timahay dhax gashaa qurux bay ka dhigtaa dhaldhalaal midabka ruuxii ma dhugtaa okay buu dhahayaa dhagdhag dib gacanta haweenkii rabaatimo dhaadheer ha isticmaalaan saliida dhaqankaaba waliba waxa ay dhistaa qurxisaa midabka timaha waana saliid la hubo saliida dhaqankaaba waxaad ka heli kartaa inta badan gobolada dalkeena goobaha lagu gado waxyaabaha timaha la mariyo iyo dukaanka kugu dhagan ama wixii farintaas dheer waxaad kala xiriirtaa eber 65 eber 7 86 46 saliida dhaqankaaba